asalaamu calaykum asxaabiya muddo iska dambeys kadib adoo isku soo laabanaysaa filaayo maantana waxaa idin wadaa akhbaaraad cusub kuwaasoo ku saabsan dhanka turkiga waxaa ku bilaabanaa asxaabiya xogta ugu horeysa waxaan ka dhiganaa engin aritaankaasoo la sheegaya imtixaano cusub oo samayn doono weliba taxanaas oo ahaan doona mid action iyo wuxuu ahay isku darsan sirdoon qaab qurux badanna waa loo diyaari doonaa sida la sheegayo marka waa sugaynaa in ninkaasi oo haddana xarakeenay markale oo kusoo laabto shaashada maalmaha asaa haysto dhanka turkiga oo la sheegayo in dhowr taxano kala duwan marwaa mid madax loo gelinayo balse arkana midka si toos la imaado wuxuu gacanta ku haystaa taxanayaal digital ah yacni oo qaybo ka kooban ah sida toban xalqo sida xalqacmo ah iyo sidoo kale taxanayaal oo maaragtay oo sida turkida lagu yaqaano 2 saac marka taageerayaasha badan waxay filayaan taxanaha cusub oo samay doono inuu noqon doono mid TRT1 laga daawado maadaama meeshaasi marar badan uu ka qaraabday mashruucyo badan oo uu sameeyay taageerayaasha marka meeshaas ay madax u gelinayaan ilaa hadda waarkana wixii ka soo baxay ninkaas halkaas aynu uga gudbeynaa sidoo kale waxa gudbeynaa ninkan lagu magacaabo Onur haddana ninkan maalmahan waxa diiradda ka saarnaa inuu films ka sameesto kiisugu dambeeyay waxa la waday gabadhii ku jirta taxanaha Safdi Gamsensin ama waxa tahay qofta aan jeclahay marka haddana wuxuu sameeyaa film kale waxaana kula jira 2 actrisho waxaan lagu magacaabaa Daria iyo Mina ayaga ayaa kula jira filmka sheekadiisana xogo waxa uu egahay gabar iyo hooyadeeda xiriirka ka dhaxeeya marka filmka waxa iska leh OGM Pictures waxaan laga daba doonaa Prime Video waxaana la daba doonaa taxanaha bisha socota 6deeda mase 6da June sidoo kale waxa la sheegay taxanaha Ashraf Ree inuu kusoo biiray nin aad u weyn kaasoo markii shaashada uu ku jilayo taxanaha wuxuu ahay laadarnimo aad uga soo baxsanaya haddana waxaa la sheegaya inuu ku jili doono doorka odayga ama duqa kaas oo marar badan ku soo laabtay taxanaha magaciisa aktarkaas waxaa lagu magacaabaa Ujur waana kana waa nin faka ku jiro intiisa ilaa hadda sidoo kale mas'alaad waxay si badan ay haddana mar dhow bilaabo doona waxaan iskala Canal D mas'alkaas waxaa lagu magacaabaa 17 jir saajaclahay marka 17 sano marka mas'alkaas aad buu xiis badan yahay naftirkiisa waxaan rajaynayaa inay noo soo turjumi doonaan bahda wax turjunta ee asal iyo astaan iyo waxa ay fan project dhammaan kuwa shaqeeya oo ka shaqeeya dhanka TV-da Soomaaliga qaybtiis ugu horeysa mas'alkan waxay soo bixi doontaa 31 May bishan ku jiraan 31deeda waxaana ka dhiman saafilay 10 maalin hadda maanta marka taariikhda loo fiiriyo sidoo kale waxaa la sheegaa in 2 jila oo aad muddo dhan isla noolay ku dhawaad 8 sano wiil 6 jir mase wiil 6 sano jir ah haystana hadda ay kala tagayaan mase ay isfurayaan aktar korta waa mid aad u taqaanaan mas'alkiisa ugu dambeeyay wadan waa dhaxal sugay wuxuu ku jiray marka mas'alka ku caan baxayna wuxuu ahaa mas'alka godka Elkan Toljak iyo Sashun Natashasun ya bismillah magacadka marka sida ay ku kala tageen labadaas macsalaamayeen isdheheen marka waxaan rajaynaynaa mid walba inay wadadiisa u toosi doonto sidoo kale saxaabay ninkan lagu magacaabo Ismaaciil Damirji ayaa wuxuu ku biiray mas'alka Maxamed Faatix waxaan filaynaa marka inuu soo muuqan doono dhamaadka qeybaan maadaama taxanaha uu 83 ku dhamaanayo marka haddana 80 iyo dhowr buu maraya marka intaas dhamaan ayuu ku soo muuqan doona saafilay marka ninkaas ayaa sanad taxanaas ku soo biiray ka warhaya sidoo kale saxaabay waxaa jira mas'alkan oo muhtabal ashkal dhahayo waxaa ku jira dad badan oo caan ah sida kuwa walaalaha ku jira inta badan waxa u badanaa islada kuwa walaalaha ku jira marka waa kana sawiradooda fiiriba intii ka taqaanin ka soo dhax saara intii kalena waa kaasa mas'alkan hadda waxa loo fadhiyaa aqrinta sheekooyinka yacni qof walba wuxuu iska aqrinayaa sheekadiisa yacni masadoorka ku jilay waarkana marka taxana hadii uu noqdo mid wanaagsan maadaama ay ku jiraan dad waaweyn soo saarista waa MB Yabin kanaalka laga daawanayna waa Show TV waxaana bilaabanaysaa duwistiisa Jimcaha soo socota mase Jimcaha biri ah sidoo kale waxaa jira taxano oo madar la dhahayo kaas oo asagana yacni kuwa digitalka oo maaragtay kooban waxaa iska leh Postdoc film waxaana laga sii deelahay Disney Plus waa la diyaariyay wax walba waa la isugu dabriday taxana waa mid sirdoon sheekadiisa adag tahay balse maxay kaga taalaa aktarkan ma aqaama habaar baa ku socda ma hal actrish ilaa hadda waa loo leeyahay muddo 4 bilood ayaa ilaa hadda maaragtay diyaarintiisa la wada ilaa hadda hal actrish oo maaragtay ogolaato waa la leeyahay dhowr actrish waa loo bandhigay wayna diideen kifaaj tatlatuk ilaa hadda habaarka hayo cid habaaris iyo meesha laga weeraro kaalis ka sheegay saasata waxaa la qorsheenayaa in muddo 6 isbuuc ma 24 isbuuc la sameeyo yacni ku dhawaad 6 bilood ama 6 bilood sare 6 bilood in duwistiisa lagu dhameeyo la rabay waxa ka talaa ka jadwalka gadaal u dhacay maadaama la actrish aan la heenin sidoo kale taxanaha maaragtay oo ku jira Aras Balad waxaaba soo galaya aktar kale waxaana ku jira aktarka hadda ka soo baxay magaalada fog kaas isla markaas wuxuu galay taxanahaasi kuwa kale loo jiraan xitaa waxaa jirto actrishadii caanka ahayd taas oo ka soo baxday taxanaha Koros Cusmaan waa fahmi kartaan marna baalaha tan gabadhi ku jilaysay Osjiya Kitmiya taas ayaa ku jirta taxanaha iyadana qayb ay ka noqon doontaa gabadhan taageero badan way ka leedahay dhanka Soomaaliya haddana waxaa arki doonaa marka taxanaha ay ku soo laabato sida ay u soo dhaweey doonaan waxa ay ku
ku barteen ama ay kula qabsadeen kaliya doorka ahay baala. Haddana waa markii ay tijaabi lahayd door ka duwan mase ay open doors noqon lahayd, yacni ay noqon lahayd gabar door walba ka baxsan doonta kaliya hal door aan ku ekaanaynin. Masalka sheekadan waxaa waaye aabe labadiisa caruur wata, xitaa caruurta waxaa jira stii gaardishlerim ku jirta maaragtay cunugta yareed, taasaa waxay jiri doontaa gabadha oo dhalay aras wax ku jiri doonaa Kamaal. Sidoo kale waxaa ku jira odagii bahalka ku jiray kaasoo awoowe u ahaa Yamaan Cali. Marka dad badan oo waaweyn baa ku jira taxanaha. Sheekadana waxay noqonaysaa, yacni sheekadiisa waxay tahayna in meel door ay ku xanibni doonaan aabaha iyo gabdhihiisa oo meeshaas shir ku gali doono, qaabka u badbaadinayaan, qaabka u badbaadayo, rafaadka ay marayaan. Taxanaha maadaama kooban yahay kulli asigana waa 8 xalqo, waxaana laga sii dayi doonaa dhanka iyo Netflix. Marka waa arkaynaa taxana xiiso badan oo gaaban, xalqadaha meesha lagu duubayo wax dhan isku dhammaystiran. Waxaan sugi doonaa kaliya waqtigu soo bixi doona insha Allah. Sidoo kale waxaa jira filim cusub kaasoo soo bixi doona, waxaana kala wada Aafa iyo Damirhaan. Aafa waa gabadha ku jirta daxo ahay Tajtaag Budnis. Marka Damirhaan wuxuu ku jili doonaa Yamaan, halka Aafaan ay ku jili doontaa Maryan. Marka gabadhan hadda le u kala kaca taxanaha, hadda le soo baxday marka isla markiina wuxuu ahay waa ka faa'iideys waqtiga ka faa'iideysan la wajaan Swangool. Marka ayagana waa u hambalyaynayna. Duubista filimkan waxay bilaaban doontaa isbuuca ugu horeysa ee June, waxayna ka bilaabanaysaa Konya. Sidoo kale saxaabi gabadhan Ebru Shaahin qofka yaqaano ayadana waa 32 jir oo bisha hadda lagu jiro May 19 ayaa waxay noqotay 32 jir, waana loo hambalyeynayay. Anana sidaas ayay u soo qaadanay sababtoo ah halkan waxaa ku wada falanqeynaa wixii Turkiga ka cusub. Sidoo kale atirishadan ayadana mid caan ah Soomaalida xitaa caanka ah, mas'alo badanna laga daawaday. Marka ayadana waa 32 jir, sanadkeeda cusub, anagana waxaan leenahay hambalyo. Sidoo kale saxaabi ninkan bal eegawada aktarkan aad ku caanka ah waxaa la sheegay in maaragtay ficilada qaar asiga uu sameeyeen oo loo sameeyay, yacni misalkan shirkan inta uu waday ficilada qaar asiga uu sameeyeen oo qof asiga loo ekeysinayo uu sameeyay. Marka tan maxaa ka leedihiin inta badan way isticmaalaan aktarada qaarna ayaga samaystaan waxooda. Misalka Kardashian ma akhi mas ABA kaas oo haddana la sheegay inay ka bixi doonto gabadha Aafa, taas oo la duway alday muuqaalkii ugu dambeeyay, xalqada ugu dambeeyay ka bixi doonta sidoo kan ah. Marka taxanahan wuxuu ku dhamaan doonaa 23 June dhamaan doonaa, waxaan ku dhamaan doonaa xalqada 21aad. Haddana waxaa maraya 17 ama 28 saafilayo. Aafana mas Afraamiya ayadana waxaa ka bixi doontaa labadaas qaybood oo saafilayo. Sidoo kale saxafi ayaa wuxuu sheegay in maaragtay ay sabab u tahay in Afra ay ka baxdo taxanaha khilaaf dhex imaaday laba jilaa, yacni labada jilaa meesha hadda aniga idin sheegay, yacni Keenan iyo waxaas qabtay saafilay Afra saas awgeed taxanaha dadkan kale waxay ka saareen gabadha Saajacla. Marka warkan kulli taxan waa inay runta in kala la waclam, laakiin khilaaf ayaa laga yaabaa inay taxana uga baxdo sida la sheegayo. Sidoo kale saxafi waxaa la sheegay taxanaha Tajtaag Budnis in kala tag xun uu yeelan doono dhamaadka seasonka, masala laba qof ee si xun ugu kala tagi doonaan, yacni laba lamaane. Marka taa waxay ka dhigan tahay in masa waxa kala tagi doono Fatima masa Isu masa wuxuu ahaay Kojari iyo Asma masa labada kale. Marka saxaabay yaa idin la tahay in taxanaha ay noqon doonto in uu kala tagaan, yacni inay kala tagaan waliba si xun. Marka tan kulli waxaan ilaa hadda ma jirto wax rasmi la sheegay, laakiin sidaas ayaa la sheegay finalkan oo noqon doona mid aad xamaasad badan, kala tagnamaha ka imaan doonaan. Marka waa arkaynaa sidee noqon doonta ma Aafa Braba kala tagaayo, yacni magacyadooda saxda waa labada jilaa kale Uruj iyo waxaa waaye mid kale Elini. Marka ma ayaga kala tagi doonaan mase labada kale waa adi taxanaha 6 lamaano waa moogtaa waa 3 dumar iyo 3 rag. Marka waa arkaynaa wax kala tagi doona. Marka saxaabi aadna dhakan iyo taxanaha Yaraatli asigana waxaa ku biiri doona Eren kaasoo haddana ku jiri doona doorka Jihaan, waxaana matali doonta hooyada wiilka dhashay Aziza mid ku jirta. Marka wuxuu matali doonaa Jihaan oo ku jilaya, wuxuuna jili doonaa in Aziza ay hooyadiisa tahay. Marka asxaabi maxaa ka leedihiin asagana midkan kana Kardashian waxa ugu xigay midkii uu sameynayay wuxuu ahay kula jiro wuxuu ahay Halit, haddana waxa kana ku soo xigsaday asigana kalkan doorashadiisa maxaa midkan asagana maxaa ka leedihiin. Sidoo kale saxaabi midkan masa Maxamed Bazago iska leeyahay Ashk Taht masa Ashk Fahtaht midka kaas ayaa maaragtay maalmahan si aad loo bunbuuninaya, waxaana hadda wada hadal lagu jiraa sida la sheegay dhowr jilaa oo waaweyn. Marka magacyadoodana waa kuwaana bal yaa ka dhex taqaanaan fiiriya. Erjan Kasel odagan bismillah kan hadda meesha ku jira, haddana Erkan kala joogla waa midka xaskiisa kala tagan idin sheegay asagana ku jira waa wari. Sidoo kale Emri Bey ku jira waa hay, haddana Holifera mid ku jilayso oo bilawgi masa Ejem ayadana ku jirtaa. Sidoo kale kii Turgud ku jilay asagana waa ku jiraaba Jengis waa iska bartan magaciisa. Sidoo kale waxaa ku jira xataa kii ku jilay article laakiin saafilay bal fiiri kan ma kii article laakiin ku jilay masa midka kale maaragtay oo Falaar Lahmiya oo Salaaxuddin ku jira.
in isku egina umalinaaba asna waxaa la dhahaa kaanta shanar sidoo kale waxaa ku jirta gobol la dhahay Rabia marka hadaba sidaan taa ninkan waa soo tashtay ashkafe tahta dila marka anaga xataa masuul karna Soomaalida ahaan hadii intaan oo jira aan aqaan la soo keenay hadda wada hadallo kula jira laakiin hadii mid aan u toosto boosdaag ma aragtay oo jilayaashan isku keeno marka Turkiga taxna ugu weyn kana noqon doona iga qora sidoo kale magaalada fog asina waxa la sheegay in finaalka mise dhamaadka seasonka oo noqon doona mid aad u xamaasad badan aroosaya dhici doona waxaan is aroosaya caaliya iyo ma aragtay jihaan balse arooskaas waxa isku bedeli doona dhiig meeshaasna dad badan ay ku dhiman doonaan sidoo kale waxa la sheegay inay taxna ka bixi doonaan 4 qof afarta jila ka baxayna waa Booraan Shahiin Damir iyo Fayaad kuwaas oo doorarkan ku jilay taxnaha asxaabi waxaa maqla mataqaana xoo ahaa taxnaha taxana la sameeyay oo taabiya iska leedahay nidaamka mulki la dhahayo oo waagii Malik Shah ahay marka Malik Shah waa jilay aktar kala jilay marka aktarka xoo ahay yani ninkan nidaamka mulkiga wasiirka waxa jilay la dhahayo xoo ahay midka wasiirka Maxamed Faatix ka ahay Salim Bayraktar marka midkaas jilay la bismillah marka maqlaba waa aamin waaba taxana noocaasa marka waxa taxana kala laba soo socdo hulacay isla markaadna xogta ku xigta soo baxday waxay in Salim Bayraktar oo taxana jiri doono ka baxayo oo aktarka lagu bedelayo marka Salim Bayraktar doorkiisa waxa lagu bedelay Mark Turan akin aktar laan oo jira marka doorka Malik Shah marka arkana wuxuu ka kooban yahay 12 xalqad waxaan iska leh taabi marka arkana taxana isagana marka soo baxo sidoo kale misalka Shiraak waxa la sheegay in sidoo kale sameey doono isla tirishada ku soo noqoto haddana waxa ku soo biiray tirishada يعني هذا waxaa ku soo biirayba maamada ku jirta waxa ahay Isaaq Shaheer oo ku jilayso hooyadiisa jaan hooyadiisa ku jilayso haddana taxanaanay ku soo biirayso ayadana taxanaanay dur ay ka qaadan doontaa marka arkana wax ka soo baxo asxaab baaradkeena maanta intaan ay noog egtaa sidoo kale xoo ahay waxa sameeyay codeyn dhanka bastiga aan soo dhigay taas oo ah laba jilay waliba koocan in noloshooda mid aan ka hadlo masaladood baan ka wada hadlo marka codeyntaasna ka qayb qaata qofkii doonaya in ma aragtay jilayaasha ay taageeraan noloshiisa iyo ma aragtay taariikhdiisa oo ma aragtay Soomaali ahaan inta lagu soo gudbiyo waxa sameeysan kaas iyo postiga taga labadaas jilay masaladood hal mar ma soo ka soo wada dhigamasa mid ayaa keenay mid kale oo iska daya bal soo codaya inta ka kulmeen marka muuqaalkiisa xigana kan laakiin oo si saar ilaa inta hadda muuqaalka soo garto lag aadan saareen waa farxumay muuqaalka laakiin saar waxaan leeyahay sidaas nabadgeliyo